boga ayaa ay xanuuna mar walba cuntada markaan cuno waa mantagaa marmar anigoo baahan ayaa mantagaa bismillaahi raxmaani raxiim walaalaha qaaliga soo dhawaada ku soo dhawaada janalkeena insha Allah maanta waxaa diirada noo saaran inaan ka hadalno gaaska cudurka la yiraahdo gaaska maxaa lagu gartaa maxaa lagu daaweeyaa maxaa calaamad waa insha Allah run ahaantii waxaa jiro dad badan oo la dhiban cudurkan gaaska aadna ugu rafaadsan waana nisbe aad u weyn dadka boqolkiiba 90 dadka uu saameeyay ayaan oran karaa sanadkan da'yar iyo da'weynba qof walba wuxuu ka cabanayaa gaaska haddaba gaaska waa maxay marka hore gaaska waa laba nooc midna waxa waaye cuntada markaad cunto ayuu aad dareemtaa calaamadaha gaaska midna baahida ayaa lagu dareemaa badanaa gaaska waxaa keeno qofka oo ardayda badanaa iskoolada ama dugsiyada markay aadayaan ama dadka shaqada markay u kala hayaan dadka aan qureecanin oo baahi ku baxo subax kasto gaaska wuu keenaa waxaa kale intoo kalena gaaska waxyaalaha kulul qofka badsado tusaale ahaan basbaaska dhandhanaanka cusbada waxyaalahaas kulul dadka cuno badanaa dalac bilaashka waxyaalaha aad kulul dadka cuno wuu u badan yahay wuuna keenaa gaaska waxaa kaloo keena gaaska bacteria loo yaqaano H pylori ayaa keento ayadana boqolkiiba 50 oo kale waxaa keenta bacteriaas loo yaqaano H pylori marka walaalaha qaaliga ah waxaa loo baahan yahay gaaska ka hortag in loo sameeyo tusaale ahaan waa qabtaa gaaska hadaa qabto waxaa loo baahan yahay lifestyle change noloshaada nolol maalmeedkaada ina isbedel ku sameyso waxaa isbedel ugu sameynaysaa tusaale ahaan basbaaska ina iska yareyso ama iska dhaafto subaxdii adoo baahan inaada bixin waxaa kaloo loo baahan yahay waxyaalaha kuleelka oo aashitada ama alcoholka leh sida dadka badanka oo dad qaar waxay cabaan Coca-Cola sideedaba wax caafimaadka u wanaagsan bini'aadanka ma aha waxa saxdoo laga sameeyana lama yaqaano sideedaba caafimaadka uma wanaagsano aniga kuma taliyan in la isticmaalo Coca-Cola gaar ahaan gaaskan way kicisaa laakiin sideedaba caafimaad ahaan uma wanaagsana marka in la iska dhaafo sababtoo aashitada ayaa fara badan marka in la iska yareeyo hadaa la iska dhaafi karin xataa qofka waxaa laga yaabaa qofka inuu zeed ul qabsaday marka waa in at least la iska yareeyaa walaalaha qaaliga ah gaaska wax la sahlan kara ma aha kumanaan qof ayaa u dhimatay gaaska marka ugu dambeeyso wuxuu keenaa halis wuxuu leeyahay complication wuxuu leeyahay dhibaatooyin wuxuu leeyahay ugu dambeyn wuxuu keenaa dhimasho wuxuu kale keenaa gaaska caloosha inay dilaacdo oo hadhow qaliin kugu noqoto oo waxay noqonay calooshaado idil in la furo kiisas badan oo saas oo kale ayaa jiro marka intuu bilowga yahay ay wax ka qabasho leeyahay gaaska haduu kugu weynaado haduu kugu fido waxay noqonaysaa caloosh inay dilaacdo ugu dambeyn aad u dhimato marka insha Allah hal iskala tacaalo intuu bilowga yahay hal iska daaweeyo gaaska gabi ahaantiis waa la daaweyn karaa qofka haduu nolol maalmeedkiisa bedelo oo nolol maalmeedkiisa isbedel ku sameeyo uu daawooyin sax qaato gaaska uu iska daaweyn karaa ugu horeyn waxaan ka hadlaynaa qofka sidoo nolol maalmeedkiisa u bedel lahaa marka ugu dambeysana waxaan gali doonaa daawooyinka caadiga ani markasta waxaan diirada saaraa qof dadka inaan daawo kula degdegin sababta oo qof maskiin oo daawo gadan karin ama waxaa laga yaabaa qofka si emergency ama si kedis gurigiisa soo joogo inuu xanuunku marka qofkaas daawo ma ka gaaro wuxuu u baahan yahay wax uu gurigiisa ka heli karo oo wax u qaban karo marka waxa koobaad oo kula talin lahaa waxay ahayd caano booraha ama caano dhaay oo qabow oo baraf inuu ku darsado qofka ama uu barxado oo xoogo biyo ku daro uu saas ku cabo wuu u fiican yahay gaaska waxaa kale oo u fiican gaaska resting inuu sameeyo qofka ama inuu nasto gaar ahaan uu u jiifto dhabar oo wajigiisa kor u aadiyo gaaska qofka wuxuu ka dareemaa markaas relief ayuu ka dareemaa ama fiicnaansho ayuu ka dareemaa waxyaalaha gaaska lagu daaweeyo oo dabiiciga ayay ka mid tahay waxaa kale oo ka mid ah qofka caano heli karin biyo caadi biyaha cad biyaha caafiga ma aha biyaha kale oo caadiga oo cad inuu qofka uu isticmaalo oo baraf ku darsado xataa hadaa barafka heli karin meel banaan oo qabow ama geed hoostiisa dhigane markay ku qabobaan cabe ayadana waa daawo kale oo dabiici ah oo u fiican gaaska waxaa kale gaaska in laga ilaaliyo qofka inuu iska ilaaliyo baahida
sidoo kale cuntada badanna gaaska way keentaa. Cuntada badanna qofka inuu iska yareeyo. Bariiska oo kale uma fiicna dadka gaaska qaba inay iska yareeyaan. waxyaalaha dhanaanka inay iska yareeyaan, basbaaska oo kale, cusbada oo kale, waxyaalaha soo idil inay iska ilaaliyaan. laakiin waxa u fiican gaaska biyaha liin dhanaanta. biyaha liin dhanaanta gaaska way u fiican tahay, qofka hadduu heli karo waa inuu cabaa. insha Allah inkaas waxaan ooga baxay daawo dabiici ah oo qof maanta xanuunsan oo gurigiisa jooga hadduu gaas ku kaco sidoo isaga xalin lahaa. marka hadda waxaan u gudagalayaa daawo farmashi ama dhakhtar. aniga mar walba MBA ii saaran daawooyinka waxaa wanaagsan dhakhtar markuu kuu soo qoro ama warqad prescription inaad u haysato inaad cunto. daawoyin in la iska cuno ma fiicno, sababtoo ah dadka ayagoo gaas wada haayo oo daawooyinka gaaska cad ah oo la qaadan karo waxaa laga yaabaa qofkan dhibaato kale inuu jiro. qofkan wadnaha inuu ka xanuunsan yahay, inuu beerka ka xanuunsan yahay, inuu cillad kale qabo uusa daawooyinkan keligiis shakhsi ahaantiisa u isticmaali karin. marka gaaska daawooyinka haddaan u galo, daawooyinka 3 waaye. combination drug ayaa la ama 3 daawo ayaa la isku daraa. kow waxaa waaye daawo gaas ah iyo 2 daawo qalajiye ayaa la isla qaataa. qofkii hal daawo gaas ah iyo 2 daawo qalajiye qaata insha Allah waa emergency treatment, waa daawo degdeg ah oo qofka ka fujin karto gaaskiisa waa hadduu halis yahay. waxaa isku darsanaysaa omeprazole, waxaa kaleeto ku darsanaysaa amoxicillin, waxaa kaleeto ku darsanaysaa metronidazole. combination drug ayaa la 3 daawo waa 2 qalajiyo iyo 1 daawo gaas waa la isla qaadanayaa. 3 hal mar ayaa la qaadanayaa insha Allah. maalintii 2 jeer ayaa qaadanaysaa, waana taas daawada caadiga ah. maya daawada oo waxaa waaye taas oo farmashiga ama dhakhtar soo qori karo. horeyna waxaa idinkugu sheegay daawo dabiici ah qof kasta gurigiisa ku isticmaali karo. waa mahadsantiin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.